lamaane ku taajiray hal maalin kadib markii haro biyo ku jiraan ay ka heleen lacag ku dhow 100,000 oo dollar. intaan u gudagelin sheekadan haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad ma soo booqato waxaan kaa codsanaynaa in aad nagu soo biirto mahadsan. lamaane u dhashay dalka Mareykanka ayaa maalin taajiray kadib markii bilaba ay ku jilaabanayeen ay u soo qabatay sanduuq yar oo gunta hoose ee badda jiifay, taas oo ay ku jirtay alaabo qaali ah oo ay ka mid ahayd lacag. James iyo islaantiisa ama marwadiisa waxay ka jalaabtaan badda waxayna raadsadaan biraha qadiimiga ah iyo alaabaha kale ee looga tagay badda, waxayna maalin kasta u soo shaqo tagaan halkaasi. waxaa maalintii Jimcaha ahayd ee la soo dhaafay ay ka heleen badda gunteeda sanduuq yar oo qufilan oo ay ku jiraan alaabo qaali ah iyo lacag ku dhow 100,000 oo dollar. ninkan oo lagu magacaabo James iyo islaantiisa ayaa waxa ay ku jilaabtaan birlab ama birqabato ay ka dhaxeleen badda gunteeda, taas oo ka mid ahayd alaabo qadiimi ah oo horay ay ugu heleen badda. Mr. James oo la hadlay warbaahinta magaalada New York ayaa sheegay, markii aan furnay sanduuqan yar waxa aan ku aragnay waan aamin weynay. waxa uu intaasi ku daray in ay ku arkeen lacag kor u dhaafaysa 100,000 oo dollar, taasi oo qoyan, waana uu aamin waayay isaga iyo marwadiisa sida ay sheegeen. lamaanahan oo ka cabsaday in daalac ah loo raacdo ama eedeemo lagu soo oogo ayaa waxa ay sanduuqii yaraa ee lacagta ku jirtay oo ay ka heleen badda gunteeda u geeyeen saldhiggii booliska ee ugu dhawaa, waxaana loo sheegay in aysan hadda jirin faldambiyeedyo la xiriira lacagtaasi. sidoo kale waxay booliska u sheegeen in aysan jirin lacagtan in horey loo tixraacay iyo in kale, waxayna lamaanahan u ogolaadeen in ay haystaan lacagtan iyo waliba sanduuqa yar ee ay ka heleen badda. lamaanahan ayaa sheegay in ay bilaabeen shaqadan ee hayaan ee ah in ay biraha iyo waxyaabaha kale ee looga tago badda in ay raadsadaan sanadkii 2020 markaasi oo adduunka oo dhan uu si isku mid ah ugu dilaacay una saameeyay xanuunkii COVID-19 ama coronavirus. waxayna sheegeen in bilabtan ay hadda sanduuqan ku soo qabteen ay ka mid ahayd alaab qadiimi ah oo ay ka heleen badda intii ay shaqadan ku guda jireen.